Sheekh Maxamuud Xaaji Cabdulbaari Xaaji Ibraahim gudoomiyaha dalada culimada Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka soo kicitimay ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta. ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير بارك الله فيكم اهلا مرحبا ومديه سهلا يا مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حي Geeda diyaaradaha caalamiga ee Moi ee magaalada Mombasa ayaa qaar ka mid ah culimadiinka magaalada Mombasa iyo siyaasiyiinta magaaladani ay sheekhay ku soo dhaweeyeen. Sheekh ayaa waxa uu soo guday bartamaha magaalada Mombasa halkaas oo ay qasiidooyin soo dhaweyn oo nabi amaana ay ku soo dhaweeyeen sheekha. ardada wax ka barata madrasada Fathur Rahmaan ee magaalada Mombasa iyo waliba sidoo kale madrasada Saalixiya ee xifdinta Quraanka Kariimka ee magaalada Mombasa. intaas kadib ayaa halkani waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimadiinka magaalada Mombasa iyo waliba sidoo kale qaar ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaaladani kuwaasi oo si diiran u soo dhaweeyay sheekha. insha Allah ta'ala asaan soo tarxiibinayo سيدي والد كيني أهلا وسهلا ومرحبا مدرسة فتح الرحمن مسجد تقوى إن شاء الله تعالى كسر دواء يعني لنا سيدك أهلا وسهلا إن شاء الله نشكر فرصة هي كريبيشة شيخ ويتو شيخ محمود عبد الباري كتكون الزوني وكوبوا من كبار علماء هذا الزمان من كبار دعاة خاصة في بلد الصومال عنده أربطة وجامعات ومدارس ومراكز كثيرة في الصومال. sidaan oo kale inaad mar walba aan ku soo dhaweyno waan jecelnahay insha Allah ta'ala sheekhu waxaan leenahay soo dhawow insha Allah ta'ala culimadii iga horeysay baa ka hadashay soo dhaweynta sheekha juhuudiisi aad bay u badnayd halkan ilaa Soomaaliya meel badan buu sheekh madaaris ka furay maanta waxaa farxad leh inaan sheekheennii aan soo dhaweyno oo magaalada Mombasa aan ku soo dhaweyno ka culamo ahaan ka mas'uuliyiin ahaan waxaan soo dhaweynaynaa maantay maalin weyn weeyaan sheekheennii aan ka soo qaadnay aeroboortka haddana masjid Taqwa aan keenay sheekh soo dhawow magaalada Mombasa weeyaan waa magaaladii awliyada waa magaaladii diinta alxamdulillaah marka sheekheena hadhawaayani marka dadba meel rooga marka dadka badan qaraabada iyo dadkii hadhawaayina ma hasanyin dadka baa mushtariga u weynaa marka gudaadka kale oo hata nin qoys inay Haji Sakariya Rayaan usino waaka hata qoy dadka walaagiba meel roon farxad ka dhawaada walaagan hataysan argaasan mana dadkii mana binaadinka lambalan shay leh weynaye markii isuu ilaahay khayraana si uni dalbani intii isuu nin qoy sheekha ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta ee dalkani Kenya runtii maqaam iyo masib aan lahayn ayaad noo yeesheen oo naga soo dhaweydeen akhyaarteena soo dhaweeyay dhan waa salaameynaa madrasada oo madrasada Fathur Rahmaan iyo fi masjid Taqwa iyo anti ahbaab oo akhwaana halkaan joogto dhamaan waa aad iyo aad inaan ku faraxsanahay faraxeena wax la koobi karo la qiimeyn karo ma aha Allah idin barakeeyo runtii insha Allah waa daalantiin adinkana hilow iyo shoog ayaa intaan isku ka keenay laakiin insha Allah waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayr markaan ka bacdi wax yar in la kala nasto waa idin joognaa anaka insha Allah ajlisuna asbuucan oo akthar insha Allah ilaa bisha hadda socoto aakhirkeeda tan kale ilaa awaa'ilkeeda ilaa shanteeda inaan gaara laga yaabaa waa isku dhergi doonaa waa wada fadhiisan doonaa mashaacirtana waa soo ziyaaran doonaa runtii Mombasa ani waxaan u qabay meel yaroo gobol ah oo aad iyo aad u yar liawal marra adkhul ilaa juwatiha muddo asbuuca ayaa Sheekh Maxamuud Xaaji Cabdulbaari Xaaji Ibraahim oo ku sugnaan doona magaalada Mombasa isagoo sidoo kale kulamo la qaadan doona qaar ka mid ah culimadiinka waaweyn ee gobolkan xeebta. محمد عبد بوتان warbaahinta ista magaalada Mombasa.